Assalaamu calaykum. Alle subxaanahu wa tacaala wuxuu qoray in wax kasta oo dhulka dushiisa saaran ay dhammaanayaan oo ay dhimanayaan. Alle weynina wuxuu qur-aankiisa ku leeyahay suuradda Ar-Raxmaan aayadda 26 ilaa 27. Dhammaan waxa dhulka korkiisa saaran way baabi'i, waxaase baaqiya wejiga Rabbiga sharafta iyo weynaantaba leh. Mar haddii Allah uu ku xukumay dhimasho wax kaste, wax dhab ah in maalin maalmaha ka mida la burburin doono Kacbada sharafta leh oo ah qiblada muslimiinta, iyadoo weliba Allah ka yeelay goobtaas goob amni ah. Haddaba yaa burburinaya Kacbada? Qaabkii ayaana la burburinayaa? Waxaa la burburinayaa xilliga aakhiru zamaanka ee Dajaal soo baxo, sidoo kalena uu soo dego Nabi Ciise calayhi salaam ee ay soo muuqdaan calaamadihii ugu waaweynaa qiyaamaha badankoodii, wuxuuna Allah oofsanaya dhammaan arwaaxda dadka muslimiinta ah ee dhulka dushooda ku nool, waxaana isugu soo hadhaya dadka ugu sharka badan caalamka. Alle nagama dhiga dadkaas, aamiin. Waana iyaga kuwa ku dhacaysa saacadda qiyaame. Waxaa dhulka xabashida ka soo baxaya nin madow oo suubanaheena Maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa hore u sheegay sifooyinkiisii, wuxuuna ninkaas Kacbada u qaadqaadaya dhagax iyo jaajuur. Ninkan oo magaciisu yahay Dul Suwayqid oo macnaheedu tahay lugyare, waxaana soo saaray labada sheekh ee Sheekh Bukhaari iyo Muslim ee xadiiskii Abu Hurayra. Saxaabiga Ibnu Caas Ilaahay raaliha ka haday wax laga wariyay inuu ka soo wariyay Nabi Maxamed sallallahu calayhi wasallam. Waxaad moodaa inaan arko qof madow oo qalaafo ama dalba leh, wuxuuna u qaadqaaday Kacbada dhagax. Haddii aynu soo koobno sifooyinka uu leeyahay ninkaasi, wuxuu leeyahay 6 sifo, waxayna kala yihiin: 1. wuxuu ka soo jeedaa xabashida. 2. wuxuu leeyahay addimo yaryar oo dhuudhuuban. 3. bidaar ayuu leeyahay. 4. lugihiisa iyo gacmihiisu way qalloocaan. 5. midabkiisu waa madow. 6. wuxuu leeyahay dalbo oo labadiisa lugood way kala fog yihiin.